السلام عليكم. habeen wanaagsan maalin wanaagsan waqti walba ay ku tahay wanaagsan soo dhawaada asxaabta nagu xiran channelka YouTube-ka aan ku leenahay saki midnimo ku soo dhawaada gacmo furan qalbi furan ku soo dhawaada fadlan waxaan ka codsanayaa hadda nagu cusub tahay inaan u saartay subscribe-ka noo saar hadda hore noola joogtaan like iyo share taba subscribe-ka like qeer Allah siiyo iyo share-ta saddexdaas waa naga codsi موضوع مروقله حنون بدن أنا أهانتي أنك حنون صدي قبر صوماليات غير صوماليات دقالة السكة كل عوانتي ما قال هذا مقدسه خاصة مركز سوق لا العلماء الإثيوبيان كهاي قرح كل كلمتي لغها ضاوع في الجاري وذات في قبني نيكي مركا قبني عنده أما وذات في قبل مكاس ضاوع مركي قارتي روس هذا الجوكتو وأنا برحنون بدن أيوه فري رجو كل إذا كان متك تنسان قياس هاي لكن هذيك وحاول تكفي ضاوعة إلهي وحول حواي أسيق أولو أسيق وحول بنا وحواي وضالع عنا يا وفيرنا عفان شل المسداي جعلك كوجور ستي كان جعلك كوجور ستي بس صدقني كاعد حوج إذا أنت اللي ذاي أي عرفتي كل ولاكاس عبانيكا الصوماليات علينا هذا نوشاي وإلهي كوجارسيو حنوك يعني ورب وقسي قليل والنمر هذا حنون بدن بل إلا دعوة waxaan ahay dhibane soo gaaray dhaawac xilligii Itoobiyaadii ay bixisay xilligaas ka bacday oo isbitaal aan galay ninkii markaas aan xila ama xaas aan u ahaana isbitaalka oo iga tagay xilligaas hooyaday iyo wiil weyn aanan ila dhalan bis hooyaday ila ku fijirtay ila dhici jirtay muddo dheer ka bacday dhaawacaas waa la igu furay anigoo isbitaalka ku dhaxsuwan furiin dabadeed waa iska joogi jiray aadaan u xanuunsaday waan u qalbi jabay ilaa hadda taas kama wakabsaninba mararka aan soo xasuusto waan isbedelaa ma ana ka filayna Soomaa waxaan ka filayaa ma aynan ahayn laakiin dhimalaan waa iska adduunyo wax kasta waa lagu arkaa laakiin isma dhayn dhaawac kaaga tagaa ama ma ka boqotadoon ku baahneen isma dhahaynin ka sawa iska xal adduunyo taas ilaa hadda ma ka kabsaninbo waxaan ka kabsada maahan xasuusaha ugu weyn iyo qalbi jabka ugu weyn amar walba soo xasuusta midaas ka mid ah Adibani Mariana Xasan ayaa sidoo kale ii sheegtay in mar walba ay faquuq kala kulanta bulshada iyada oo dhibsata magacyo loogu yeero kaasi oo aan ahayn magaceedii saxda ahaa balse loogu saleeyay dhibaatada haysata sida jiiste oo kale waxa ayna sidoo kale ii sheegtay inay aad u dhibsatay marka loogu yeero jiiste haddana waxaan arkay inuu jiisnimada iyo waxaas ugu liidayo leeyahay ewl bajiisad aheede leeyahay adiga muddo wax yar aan isla joognay waa kala dhamaanay ka bacday markii qofaana kugu qanacsaneen ilaahay iga dhiga shalan waa urdaay Soomaa aniga ilaahay iga dhiga sanay ilaahay ka dhigi karaa Soomaa laakiin alxamdulillah waxba iga ma leeso dad iga darana adduunyada saaran waan qadarta rabbina waa ku qanacsanahay mar walba alxamdulillah laakiin mar walba waan dhibsadaa markii leedahay jiista eraga kaliya aan dhibsado taas waay watahay Mariana Xasan imanka waxaan ku sugannahay oo aan idin kala soo hadlaynaa mid kamid ah goobaha caafimaadka ee magaalada Muqdisho wax loo sheegay in baaritaankeeda iyo jawaabihii ka soo baxay imanka qalliin lagu sameyn karaa labadeeda lugood balse waxa ay wax yarantahay waxay tahay dhaqaale gaaraya $3,000 oo loo sheegay in ay ku baxayaan si caafimaadkeeda iyo lugaheeda iyada oo bad qabtay ugu socon lahayd Marian runtii tiransboorka ay guriga kaga soo tagtay oo halkan isbitaalka ay ku timid runtii ma awoodo xitaa waxayna ummadda Soomaaliyeed guud ahaan gabarta Soomaaliyeed dhibanaha ninkii qabayne markii dhaawac gaartay jiisi aniga kuma rabo iyo hadallo xun ku dhacay ka bacdina furay
hadda waxaa waaye soomaalida caawin uga baahan tahay ilaahayna ha caawiyaan leenahay walaalaha muxsiniinta nagu xirana waxaan leenahay hala caawiyo waa lagu daaweyn karaa ayaa la yidhi ilaahay daawo ha uga dhigo qalitaan lacag soomaalida inay caawiso ay ka rabto $3,000 anigoo ka bilaabaya naftiina wanaagga nafteyda iyo nafihiinaba la jecel wanaagga waxaa waaye walaashaas masaakiinta gabartaas in la caawiyo aan jeclaan lahay buu ilaahay yidhaahdo maxaa yeelay adduunka taan isku caawin ilaahayna adduunka waa noogu tusaya korkiisa aakhirna waa noogu tusaya hala caawiyo aad aan uga calool xumooday markaan fiiriyey aragtidayda markaan arkay hadalladana markaan dhegeystay hadaladeeda u dhaawaceeda waxaa uga sii darnay dhaawaca uu ninka u geystay qalbiyan waa dareemi kartaa qofkii aad shalay isku guursateen adigoo xayiga maanta adigoo dhaawaca kaa tegay waxaan leeyahay wanaagga mar walba ummadda aan gaarsiino xumaantana aan iska reebno ummaddana xaqa ilaahay allaha tuso fadlan waxaan ku leeyahay haddaan nagu cusubtaani subscribe-ka noo saar khayr allah ku siiyo gacantaada allah kuu barakeeyaan ku leenahay walaalahana hays caawiyaan leegta iyo sheerkana intaasba noogu wada qabtay insha allah suu fiidooga meel la rugaado